ciyaartii kama dambaysta ahayd ee koobka nabadda iyo isdhexgalka gobolka Mudug oo soconaya muddo bil ah kana dhexeeya 14 naadi oo heerka labaad ayaa waxa isugu soo baxay labada naadi ee nabadda iyo Soodo oo ciyaar aad u wanaagsan soo bandhigay ciyaartan oo ka dhacday garoonka Cabdullaahi Ciise ee magaalada Gaalkacyo ciyaartan ayaa waxa daawanaya goob joog ahaa mas'uuliin uu kamid yahay wasiirka shaqada dhalinyarada iyo isboortiska Saadaq Daahir Mire siyaasi Cabdinuur Darmaan oo galmudug socdaal ku marayay iyo dadweyne aad u fara badan oo ciyaarta xiisa iyo xamaasad u yeelay intii ciyaartu socotay ayaa waxa amniga garoonka sugayay ciidanka booliska galmudug iyadoo labada kooxood ee ciyaartu dhaxmartana ay ahaayeen kuwo isku awood ah waxaana labada naadi ay kala heleen min hal fursad oo gool kulada ama rigooraha intii ciyaartu ay socotay waxaana fursadoodii lumiyay naadigii ku ciyaarayay magaca nabadda halka naadiga Soodo uu ka faa'iideystay fursadiisii iyadoo gabagabadii ciyaartu ku soo ilaatay hal iyo eber ay guusha ku raacday naadiga Soodo oo uu koobka guddoonsiiyay wasiirka shaqada dhalinyarada iyo isboortiska Saadaq Daahir Mire isagoo wasiirka guddoonsiinta kadib ballan qaaday inuu wax weyn ka bedeli doono noocyada ciyaaraha gobolka iyo dhismaha garoonka Cabdullaahi Ciise ayaa wax hadalkiisa ka mid ahaa maanta sharaf ah inaan aragno ciyaartii si nabad ku dhamaatay waxa aad ugu hambalyeynaya media iyo dhammaan askarta booliiska hormaantiisi ujigan nabad u sigtay iyo dhammaan dadkii ka soo shaqeeyay koobkan maanta meesha ka dhacaya oo Serbiya gabagabada koobkan lagu magac daray nabadda isdhexgalka bulshada gobolka Mudug ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli xirgub siyaasadeed ay ka dhex aloosan tahay siyaasiyiinta maamulada Puntland iyo Galmudug Ivan Ciise Cumar TV-ga caalamiga ah iyo Universal magaalada Gaalkacyo